قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. نبي الله موسى عليه السلام زمن كيسي ayaa waxaa jira islaam iyo oday xaas bay haayeen laakiin dad sabool oo fuqaraay bay haayeen waxba ma haystaan haba yaraatee islaantii baa ninkeeda ku tiri nabi muuse jooga leeyahay magaalada joogto aan weydiisid ilaahay inuu noo bariyo sida si ka duwan ilaahay uu nolosha wax nooga bedelo walaal tana fi amal soo jeedisay ninkii baa nabi muuse u tagay calayhi salaam kaasuu sheegay nabi muuse ilaahay u bariyo ilaahay wuxuu labadan adoon waa laba adoon oo wanaagsan ilaahay xaaladoodan ka bedel buu xaalad fiican u bedel faqriga iyo saboolnimada ayaa ku raagtay ka cabanayaan ilaahay uu ka saar markaas ilaahay u soo jawaabay nabi muuse ducadii waan aqbalay shafaacadaadii waan ka aqbalay una bishaarey maanta hadda laga bilaabo faqriga waan ka saaraynaa waana barwaaqaynaynaa laakiin barwaaqadaas sanad kaliya ku jiraya bas sanad wixii ka dambeeyay halkooda ku soo dhacaya markaas nabi muuse uu sheegay wuxuu yiri abshiru ducadii ilaahay waa ay aqbalay faqriga waad ka baxaysaa barwaaqaydii bilaabaysaa laakiin barwaaqadaas waa sanad wixii ka dambeeyay abaartii iyo faqrigii baad ku noqon doontaa isla markiiba barwaaqadii baa u bilaabatay waxay qaadaan bay ilaahay adduunyo ka siiyaa waxay dhaqaajiyaan buu barakooba laatiba habeenada kamid ninkii ugu tiri warwaad sidoo durba soodigana adduunyada u dhex galay ma warsoo nabi muuse noo sheegay inuu yiri ma waxa sanad bal xaaladda ku jiraysaa war xaaladana ka faa'iideysano markaas uu ku yiri seen uga faa'iideysanaa marka bay tiri ihsaan badan han sameeyno wadadka fuqarada han wax siino oo agoomaha Allah han u dhisno wadadka musaafiriinta han maaragtaan han qabaalino sahaydooda han siino si ilaahay tabaaraka wa tacaala maalinta inaguna ay nolosheenii hore ay ku noqoneen faqriga dib u noqono dadku ay noo yiraahdaan dadkaas dad wanaagsan bay ahaayeen markay waxaysteen halla xiriiriyo laga warayo abaal bay sii dhiganayaan waliba waxay tiri magaalada ridda laga soo galayo aqal weyn oo qasri ah ka dhismo dadka riimiga magaalada dhanka u leh soo galaya aqallo ay ku soo nasdaan oo ay ku maydhaan oo cunto aan ugu diyaarino oo dhar aan ugu diyaarino oo iyagoo nastay oo qurux badan magaalada ha soo galaan markay magaalada ka sii baxayaan saxaydeenooga ay u geeyaan ha u sii dhiganay tiri magaalada marka laga baxayna oo toddoba xilin baa loo beeclaa ilaa waa taqaanaa ayuu ma ilaa waa riimiga yaqaana wadooyinka lugta lagu sameeyo dadka cagtu ay samaystaan sidii bay dhacday sidii bilood baa dhacday oo dhamaatay nabi muuse uu sheedu ka fiiriyaa wuxuu leeyahay kuwa xogaha 9 bilood baa ayaa u dhamaato 3 bilood baa u hadhay haddana uu eega sanadkiiba u buuxsamay barwaaqadoodii manna qusmina bal way sii ziyaaday sanad iyo 2 bilood way sii ziyaaday sanad iyo bal way sii ziyaaday 2 sano way sii barwaaqoobay 3 sano way sii barwaaqoobay nabi muuse alayhi salaam baa ilaahay weydiiyay wuxuu ku yiri ilaahu soodigii kuwa yiri ma maaragtaan xaaladda sanad u bay ku jirayaan sanad wixii ka dambeeyana abaartii faqriga iyo xaaladii adkeyd bay ku noqonayaan soodigii yiri ma markaas ilaahay yiri aldoomahaygii ay 7 albaab oo macruuf ay u fureeno aniguna deema iyaga ka ihsaan liitaaba ilaahay ana arsaaqadayda oo ziyaadiyo ilaahay عملك وناكسن يقف مؤمنك ولي ماذا يدعى مؤمنك ولي ماذا هم بقضاء قدر إلهي عينك تبس حالة دينا دينا هكذا هدان دون إنه الدين بيكون هكذا وحكا لكم هكذا